ciidanka Masar waxa uu joogaa xuduudka Itoobiya. Dhoolatusyadii ciidamada isku dhafka ee Masar iyo Suudaan waa tii ugu ballaarnayd uguna weyneed ee abid loogu magac daray waardiyayaasha Niilka. warqadaha badan ee Masar u dirtay Itoobiya iyo caalamkaba doorka awooduna miiska ayuu saaran yahay. Itoobiya wali waxa ay ku socotaa wadada aan laga soo noqonayn. waxaa jira dhinacyo u diyaar garoobaya garaacista durbaanta dagaalka. xaaladuna waa mid kacsan. xilli kasta waxaa la filan karaa in madaafiicda goobtu ay isku gaarto gacmaha la isgeliya dagaal culusna uu dhaco. waa warbixin aanu ku eegayno xaaladda ka taagan biyo-xireenka Niil iyo sida ay isugu hayaan dowladaha Suudaan, Masar iyo Itoobiya. warbixinta waxaa carabi ahaanteeda qortay shabakadda lagu magacaabo Time News ee laga leeyahay dalka calalka Carbeed. ma ahan hadal hanjabaad ah, mana aha warmurtiyeed ay saxaafaddu wadwado. ciidamadu horay ayay ugu sii socdaan Itoobiya. ciidanka Masar waxa uu taagan yahay albaabada. miyay go'aamiyeen wada hadalka biyaha webiga Niilka? marxaladdu se xaggee ayay ku socotaa? waardiyayaasha biyaha Niilka. dhinaca eray bixinta magacani waxaa loo bixiyey ciidanka isku dhafka ee Masar iyo Suudaan intii lagu guda jiray dhoolatuska cusub ee ka dhacaya xuduudka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ee xurguftu biyaha Niilku kala dhaxayso. qaab ahaanse way ka weyn tahay dhoolatus keliya marka laga yimaado inay tahay midda ugu ballaaran uguna weyn labada waddan ee ay sameeyaan in muddo ah. haddana marka laga yimaado inay markan ku jiraan ciidanka dhulku, waxa ay ku soo beegmaysaa wax yar ka hon uun buuxinta biyo-xireenka oo ka dhigan barta aan ka soo noqoshada lahayn ee muranka Niilka. caddayn ilaa meesha arrintu marayso, walaacii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in Itoobiya ka go'an tahay buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka Al-Nahda. taasina waxa ay ka dhigan tahay inay saamayn toosa oo la hubo ku yeelanaysa saamiyada mid kasta oo ka mida biyaha Masar iyo Suudaan. waana tan ay joogtaysay Qaahira iyadoo cod dheer iyo mid gaabanba ku diiday ilaa iyo daqiiqada tan aan idila hadlayno kama gaabsanayso Itoobiya inay ku dheggan tahay mashruuceeda iyo qorshaheeda. iska badaayo waxa ay diidaysaa in la soo hadal qaado arrinka dib u dhigista ama hakinta biyo-xireenka wejiga labaad. marka laga eego dhinaca Masar iyo Suudaan, labada dhinac ee dhibta ku qaba qorshaha waddanka Itoobiya, waxaa dhacay isku dayo iyo warqado badan oo kale ah mid toosa iyo mid dadban kana soo baxay Qaahira iyo Khartuum. teeda tooska ah waxa ay ahayd dhoolatuskii diblomaasiyadda ee wasiirka arrimaha dibadda Masar uu ku bilaabay warmurtiyeedkii wanaagsanaa ee uu ku sheegay Itoobiya, waxaana uu yidhi Niilka waddanka iyagoo ku dhibaatoon maayo buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka. hadalla ay soo dhowaysay Addis Ababa. kadib wasiirku waxa uu ku beddelay hadalkii wanaagsanaa hanjabaad iyo goodi haddii Itoobiya ay ku dhiirato biyo-xireenka wejiga labaad. inta u dhaxaysa war-saxaafadeedkii koowaad iyo kii labaad waxa ay ciidamada Masar ahaayeen kuwa gaaray Suudaan, taasoo laga yaabo dhoolatuska diblomaasiyadda ee wasiirku inuu rabay inay Itoobiya qalbiga dajisato kadibna si lama filaana ula kulanto ciidanka Masar oo xadkeeda jooga sidii dhacday soona socotay ilaa iyo hadda. warqadda tooska ah ee labaadna waxa ay ahayd isla ciidanka Masar. waardiyayaasha Niilka ayaa siday wax ka cad magac bixinta ma jiraan si ay Itoobiya iyo caalamkama u fahmaan in Masar oo ay la socoto dariskeeda Suudaan diyaar u yihiin awoodaanna inay ilaashadaan Niilkooda iyo biyahooda. waraaqaha aan tooska ahayna waxaa matalayay doonistii Masar ee dambe ee ay doonaysay inay dagaalka la gasho Israa'iil si ay u difaacdo Gaza. markaas oo ay Qaahira khadka soo gashay ayna demisay dirirtii cadowga waana ku khasabtay in labada dhinac ay isdejiyaan. taasina sida la isla yaqaana dhaqanka siyaasadda caalamka oo dhan waa muujinah inay Masar joogto fagaarayaasha dawliga ah aynan leedahay doorarka iyo saamaynteeda, awoodda diblomaasiyadeed iyo inay awooddo inay dhaqaajiso kalana dejiso xaaladaha cakiran ee gobolka iyo inay gacanteeda ku jiraan warqado badan oo ay kala fasixi karto. waxaa jirta
su'aal soo noqnoqod badan miyay gaadhay cankirnaantu bartii ugu sarraysay miyayse meesha ka baxday waddooyinkii xalka ahaa ee nabaddu mayaase la garaacay durbaankii dagaalka shaki kuma jiro ilaa hadda inay kubaddu taalla garoonka diblomaasiyadda caalamiga ah taasoo aan doonayn inuu dagaal ka dhex qarxo 3 ka mida dowladaha Afrika ugu waaweyn gaar ahaanna gobolka aad u gubashada weyn sida gobolka bariga dhexe oo kale welina waxaa jira warqado caalamku ku cadaadin doon kara Ethiopia ugu yaraan si ay dib ugu dhigaan biyo xireenta buuxinta wajiga labaad taasoo laga yaabo inay awdo dhammaan waddooyinka kale oo uu ku jiro dagaalka hadda loo madlan yahay Addis Ababa lafteedu weli way awoodaa inay meesha ka saarto dhimbilaha dhibaatooyinka haddii ay dib u dhigto tallaabada qariska tuurka lagu sifeeyey waxa kaliya ay Masar hadda samaysay ayaa inay ku tuurto kubad ololaysa garoonka dhinaca ama labada dhinac ee kale taasi waxa ay Masar ku heshay buundooyin siyaasadeed maxaa yeelay Qaahire iyo jaalkeeda Khartoum way soo dhaweeyeen dhammaan dadaalada nabdeed ee la odorosay waxa ay baabka u fureen dhammaan dowladaha caalamka si ay u soo saaraan wax xal ah oo jeebabkooda ku jira isla markaana tani waxa ay Suudaan iyo Masar ka dhigaysaa dhinacyo aan xadgudub u soconayn ayna yihiin kuwa difaacanayo xaqooda ka maqan ee biyaha haddii caalamku ku guul darrayso inuu joojiyo qulqulatooyinka dhibaatooyinka dowladaha Carbeed ee Masar waxa ay leedahay ereygeeda iyo ficilkeeda way awoodaa halkan waxa ka soo dhexbaxaya qaababka dagaal maxay tahay duqeyn cirka ah mise waa taageerada dhinaca la dagaalamaya ee ka baxay dowladda Itoobiya ee TPLF mise waa dagaal waradeed cirka iyo dhul ah aan kaaga jawaabay haddii buuxinta wajiga labaad ee biyo xireenku tahay dhimista dagaalka waxa halkan lagama maarmaan ah inaan ka reebanaano doorka duqeynta cirka ah maxaa yeelay duqeyn kastoo ciidameed waxa ay ka dhigan tahay inay dhacdo fatahaado waaweyn oo gaaraya ilaa Qaahira waxa ay tani ka dhigan tahay dhibaato ka bax oo mid kale oo weyn gal isla tan waxa aad u fogaanaya ama aad u fogeynaya khuburada ciidan sidaa daraaddeed waxa haraya labada ikhtiyaar ee kale waxa ayna kala yihiin taageerada qowmiyadaha ku kacsan xukunka Itoobiya sida Tigreega oo leh TPLF iyo Oromiya oo leh OLF ama bilaabista dagaal dhammaystiran oo lala galo Ethiopia si ay u cadaato dhabtu Masar waxa ay geysay dhammaan ciidankeeda Suudaan awoodaheeda ciidanna waxa ay feer daran u geysan karaan Ethiopia dagaal ciidameed oo kasta waxa ay kala awoodaa in dhibaatooyin waaweyn ay u geysato Addis Ababa si fiican bay arrinkan uga warhaysaa afka lambarada marka la eegana marnaba la isma barbadhigi karo Ethiopia iyo Masar dagaal kasta oo dhacana guulaysigu waxa uu u xidhan yahay dhinaca masaarida taasi waxa ay Ethiopia ku riixaysaa inay dib u dhigto in la gaaro halakan maxaa yeelay ilaa iyo imika Ethiopia ciidankeedu xadka ma aynan keenin sidaas oo kale uma aysan yeerin ciidankeedii kaydka ahaa waxa ay taasi ka dhigan tahay inaysan doonayn diyaarna u ahayn in dagaal dhaco haddaba maxaa cad inay Addis Ababa labalabaynayso halka ay u badan tahay inay Qaahira go'aamiso arrinkeeda waxaana muuqata walwalka weyn ee laga qabo gobolka oo dhan saameyn inay ku yeelato arrinta Niilku taas oo durba ifafaalaheedu muuqdo shirkadda Xaaji Alison Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa sonkorta bariiska iyo galleyda dharka isbarbaarka bajaajyada dawooyinka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culuumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda